muno waa maclimad Soomaaliyeed oo barta dabaasha hooyooyin Soomaaliyeed iyo caruur da'doodu ay ka bilaabato 4 sano jir ee ku nool caasimadda labaad ee waddankan Sweden Gothenburg. aniga waxaa ahay macalin dabaal, waxaa ahay ganacsato gabar Soomaaliyeed ah, waxaa ahay aasaha dabaasha gabar maayo, waxaa sidoo kale ahay arday jaamacad barto. waxaa igu dhaliyay dalka markaa imaaday ma garanaynin dabaasha, marka halkaan imaadana dabaasha muhiim ay ka tahay dalka Sweden, sidoo kale maxaa la dhahaa idroodka maada sport ah jiro oo la barto, waxaa laga rabaa inaad dabaasha garanaysid si amaadaas u heshid. so ra'yiga inaad dabaasha barto waxaa dhaliyay maadaama shahaadada la iga rabay oo sportiga dabaal la'aan aan qaadi karin, anigana aan rabo inaad dalkan ka dhigto dugsi sare oo koofida tuuro, maadadaas la'aanteed aan sameey karin wixii kale dhan aan sameeya. sidaas darteed dabaasha u bartay, waxaana ku bartay kaliya bartay, waxaa ku bartay inaad dadka fiiriyo waxay sameynayaan, kadibna dadka waxay sameynayaan dhaanjiyo ka daba dhaho siday sameynayaan biyaha dhexdeeda macalin la'aan. dalkan Sweden waxay ka tahay wax la yaabo because dadka badankood macalina bara dabaasha. kaliya heerka gaaray inta la iga rabay oo 200 mitir qofka inuu dabaashto, sida mar walba isku challenge gareynaaye, marba wax tijaabinaaye. markii dambe maxaa la dhahaa markaa bartay kadib waxaa aaday koox oo ciyaarto kubadda biyaha hoosteeda la dhaho, biyaha hoosteeda goosha taala dhulka meesha ugu hooseyso. kooxdaas tikniiga qaabka iga sii caawisay si fiican iga sii horumarisay because wixii waa bartay laakiin maybe tikniiga adduunka ugu fiican ma aqoonin. soo kooxdaas darteed aan ku bartay tikniiga iyo sidoo kale biyaha hoosteeda kubadda lagu ciyaaro. marka hore ra'yiga oo mermaid oo gabar maayo waxay ku bilaabatay gabdhaha, maamooyinka iyo habeenka, maadaama dalkan aan joogno bulshada aanan diiradda la saareen waalidiinta iyo dadka waaweynka, waliba dadkana ajaanibta waddanka gadaal ka imaaday. so marka kow ay ka focus ka saarnaa, haddeertan sidoo kale waxaa bilaabnay caruurta wixii laga bilaabay June samarkii, ilaa haddana sidaas kusii wadnaa. so waxaa barnaa caruurta, dhalinyarada iyo dadka waaweynka. ciidu waa Muna Iidow waxay taariikh ka gashay inay noqotay gabadhii ugu horeysay oo muslim Soomaali ah oo ku guuleysatay biladda jiheeye ama kombaas oo uu baxsho boqorka waddankan Sweden. shahada sharafka waxaa ku helay dad ay magacaabay. shahada sharaf waxaa waaye la isku magacaabo, waxaa ay magacaabeen dad Swedish Soomaali ayuuna isku jiraan macallimiin asxaab. waana shahada sharaf ka hadlayso qofka inuu yahay hogaamiyaha dhalinyarada. waa shahada sharaf boqorka waddanka ilaa boqor uu bixiyo sanad walba uu siiyo dhalinyarada da'dooda ku hooseyso 25 3 ilaa 5 dhalinyaro siiya. sanadkan ilaaha maxaa la dhahaa iga mid dhigay 3 qof la siiyo. soo aniga laba gabar kale tahay waddankan, waxaan ahay gabadha ugu horeyso Soomaali heshay, gabadha ugu horeyso xijaabada too heshay, gabadha ugu horeyso Afrikaan xitaa inaha umaleynaya oo heshay. midasna aad farxad gelisay. Sabir Cilmi Yuusuf, warbaahinta qaranka Sweden.